السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cabdikhalid, waxaan ahay software developer, web developer ama application developer aduu kolba si loo yaqaano. Marka maanta waxaan samayn doonaa website-kan. Marka qaybta koowaad waxaan samayn doonaa qaybtan sare oo la yidhaaho navbar, qaybta dhexe waxaa la yidhaahaa hero, qaybtan saddexaad waa content section, qaybta qoraalka iyo waxaas. Marka maanta qaybta koowaad waxaan samayn doonaa navbar, baa la yidhahaa. Baalka aan isticmaali doonaa amba koodhkan ku qori doona waxaa la yidhaahaa Visual Studio ayaa la yidhaahaa. Haddaad doonaysid haddaad ku cusubtoo kale aan hore u arag oo kale, waxaad ku qori doontaa amba magacaasaad ku qori doontaa Google-ka Visual Studio Code aad ku qori doontaa, halkaasaad kala soo degi doontaa. Halkaasaad kala soo degi doontaa haddaad u baahantay. Marka website-keenan samayntiisa aan guda galno. Marka intaanan guda gelin waxaan doonayaa inaad la soo degtaan amba aad soo dejisataan laba shay oo kuu sahlaya inaad qortid coding-ka kuu sahlaya la yidhaaho. Ka ugu horeeya waxaa la yidhahaa image, xaggaasaad tegaysaa waad ku dhufanaysaa image baad ku qoraysaa, oo wuxuu kuu fududeydinayaa inaad intaad dhowr leen oo code aad qori lahayd one click oo keliya aad ku qortid amba xaraf keliya aad taabatay inaad ku qortid buu kuu sahlaya. Labaada kale waxaan doonayaa inaad live server mid la yidhaaho kale inaad la soo degtaan isagana oo ah kan, oo qaabka u shaqeeyaan waadna tusi doonaa hadhow. Marka hore labadaa la soo dega. Okay, aan bilowna haddaba coding-keeni. Haddaba waxaan odhanayaa website-kan aan samaynaa. Marka ugu horreysa inaan navbart open folder baad odhanaysaa haddaad ku cusubtoo kale coding-ka. Xaggan aan ku save garaynayaa folder baan samaysanayaa. Waxaan bixin doonaa waxaan bixiyaa website badhe. Okay, marka website-kan aan samayno waxaad samaynaysaa waxaad ku isticmaal HTML iyo CSS oo keliya isticmaal. Uma baahnin inaad waxyaabo kale soo shubatid. Waxa keliya u baahanta waxa weeyaan inaad bahalkan koodhka ku qori aad soo shubatid iyo labadii shay ee imanka kuu sheegay inaad bartaa tagtid aad soo shubatid oo keliya. Waa wax ma badno taasoo. Marka folderkaas ku dul dhufanaysaa, xaggana tegaysaa new file ku soo baxay. Faylka ugu horeeya aan samaynay waxa weeyaan index.html. faylka ugu horeeya html weeyaan. Ka labaadna waxa weeyaan waa style.css oo ah baalkii style garaynaya amba qurxinayay maxaa website-keena sida kalarada iyo waxyaabahan iyo ku qoran. Marka aan ugu horreysiina muxuu ahaa index.html keena. Waani kuu sheego la soo degtid image. waxyaabuhu kuu fududeynaya waxa weeyaan markaad Windows-ka joogtid shift calaamad tacajiib amba exclamation mark ayaad ku dhufanaysaa, enter baad odhanaysaa. Markiiba wuxuu ku soo dhigayaa bahalka oo website kasta samaynaysid waa inaad intaa qortid. Marka intaad qori lahayd shift calaamad tacajiib oo keliya samaynaysaa. Tama samaysay waxaan doonayaa inaan style-keenan amba bahalkan qurxinaya inaan ku soo xidho folder-kan oo index.html. sida loogu soo xidhana waxaad samaysaa linki. waxaad odhanaysaa link. waxaad odhanaysaa link. link baad odhanaysaa small-ka ka dhig li marka xagga href waxaad dhigaysaa faylka doonaysa inaad ku soo xidhid folder-kan. Marka faylkan doonaya inaan ku soo xidho folder-kan waxa waa style.css. marka xagga waxaad ku qoraysaa style.css. marka automatic uu ku xidhan yahay folder-kii qurxinayay. Haddaba aan guda galna aan samayno navbar-teenan ugu sarreysa. waani guuri muxuu ahaa inaad la soo degtid live server. waxyaabo ka caawinaya waxa weeyaan inaad shaygaad halka ku qortay inaad automatic uga aragtid barta. Marka waa bannaan waa warqad cad amba website cad weeyaan waa weli waxba maan qorin. Markaan ku bilaabaya
waxaad odhanaysaa ta ugu horeysa waxaad odhanaysaa nav dot nav marka baalkii imidka aan kuu sheegaya waxyaabuhu kuu sahlaya weeyaan ku xigta aad sameynaysa waxa weeyaan logo waxa weeyaan waxaan sameynaa imanka website-keenii waxa ugu horeysa aan qorayaa waxa weeyaan waa my website-kan hashtan ugu horeeya waxa weeyaan h1 markaas aad aragtay h1 h2 h3 daa soo baxay midba tay ka yar tahay ka weynta marka h1 baa ugu weyn h2 baa ku xigta size-ka weeyaan marka waxaan doonayaa inaan ka dhigo h1 doorto waxa doonta dooran kartaa dhexda waxaad dhigayaa href filekan doonaya waxaad iska href hash baan dhigaya waxa weeyaan hash haddaad degtid meel lama tegayso waa waxa weeyaan haddaad ku dhufatid maxaa folderka meel lama tegayo xaggan waxaan dhigayaa my website live my website waa kaa wixii kii ugu horeeyay soo baxay my website weeyaan okay mar haddaa intaa garateen ul li hash kaasoo kanun baan koobiyeyna control c marka waxaad control c inta taabtay xaggaa dhigtid control v xaggan dhexdaad ku kala qoraysaa waxaan ku qorayaa ta ugu horeysa waa home maaragta home waxa ku xiga about waxa ku xiga surfaces waxa ku xiga contact marka intaas html-kii saasay ku dhan tahay haddaba maxaa haray styling waxa ugu horeeyaan sameynaya waxa weeyaan textdii amba fartii ayaan soo import gareynayaa url https /font .eis.com /css exclamation mark family equal in plus sun saasay ku dhan tahay at import space ma dhexeeyo okay haddaba markaad website sameynaysid waxa ugu horeeya inaad samaysid oo must ah oo website kastaad sameynaysid waxaad sameynaysaa sida intaasaad ku qoraysaa waxa weeyaan box sizes waa inaad ka dhigtid muxuu ahaa border box waxa ku xiga inaad marginka website kastaba margin u gaar u leeyahay markaas aad uga dhigtid waxa website-ka sameynaysid doonaysid inuu ku shaqeeyo muxuu ahaa website kasta waa inaad intaa ku qortid bodiga waxa weeyaan inaad font family-giiba weeyaan amba fartii noocaad ka dhigaysid farta waxaan doonayaa aan ka dhigo open sans serif colorka waxaa la isticmaalaa hexadecimal amba noocaas waxa kuu fududaanaysa hadhow inaad colorka bedbedeshid oo solid color lama isticmaala amba white laga fiican inaad ku qortid white amba black inaan hoos baalka u dirkiyo 50 pixel okay waxaan bilaabaynaa imanka inaan install gareeyo containerkii oo ah kan containerkii if class logo containerkeena inaan xaggan container weeyaan sorry
حاجة container kiina inaan muxuu ahaa style gareeyaan doonaya marka waxaa odhanayaa dot container markaa markuu shaygu glass yahay waxaad isticmaalaysaa dot container position fix dot container waxaan sameynaya intaanan fix odhan waxaan doonaya inaan sameeyo maximum widthka inaan hagaajiyo 200 pix 1200 pix margin inaan xagga sare iyo hoosta 0 baa ka dhigaya auto center midigta iyo bidixda center ku dhigaya amba bartan ku dhigaya nav position waxaan ka dhigayaa fix naftiyo ah tan naftiyo tan waa containerkii dhammaan ku hareereysnaa fix baan ka dhigayaa background colorka waxaan ka dhigi background colorka haddaba sidaan muxuu ahaa waxaan doonayaa inay ilaa halkaa tagtay muxuu ahaa from right to left from bidixda ilaa midigta inaad tagteen doonayaa marka waxaan sameynayaa topta xagga sare waxaa odhanayaa 0 baa odhanaya bidixda waxaa odhanayaa 0 iminka right markaan qoro waxay tegaysaa ilaa midigta tegaysaa 0 marka kalarkii waana habeeyey kalarkaasi doonaya inuu noqdo kalarkii waa kaa haddaba waxaan haddaba containerki iminka way hoos yaalaan waxaan doonayaa in my website-kuna bidixda joogo home about iyo intana inay midigta tagtaan doonaya marka saan saa u sameeyo waxay noqonaysaa nav dot container inaan yidhaaho display flex marka idhaho website-ku bidixda u imanayaa intan kalena waxay imanaysaa midigta display flex haddaba waxaan doonayaa markaan saa noqotay waxaan doonayaa inaan kala durkiyo oo home iyo about surfaces and contact aan geeyo ilaa midigta xagga ugu shaysa koonaha saan saa u sameeyo waxay noqonaysaa justify content space between baan odhanaya koonahay tagtay haddaba waxaan doonayaa inaan bartankan dhigo markaas my website iyo home about surface aan bartanka u dhigo waa inaan idhaaho muxuu ahaa align item center centerkan dhigay bartankii waxaan doonayaa inaan kale muxuu ahaa baadhin u sameeyo 20 pix oo waxa weeyaan top right aan kala durkiyo 0 okay kaasaas ku dhan yahay haddaba waxaan doonayaa inaan home about surfaces iyo contact sida kuwan oo kale is dhinac dhigo waxaan saa ku sameynayaa waxaan tegayaa waxaan target gareynayaa us-an ayay ku dhex jiraan dhammaantood us-aasi ku dhex jiraan markaa us-aasaan target gareynaya marka waxaan odhanayaa .nav .ul display flex markaan idhaaho way kala durkayaan dhammaan display haddaba way kala durkeen waa inaan waxaan doonayaa inaan iyaga muxuu ahaa dhibcihii ka baabiyo least type none haddaba waxaan doonayaa inaan iyaga laftigooda bartankan dhigo align item center bartankan dhigay justify content center okay haddaba waxaan doonayaa inaan midabka ka bedelo home iyo kuwa waa inaan nav eedana waxa weeye imika waxaan target gareynaya iyaga waa kuwan eedan home tiyo ayaan target gareynaya nav colorka ma inaan ka dhigo caddaan ka dhigo
caddaan waxaan doonayaa kalarka caddaan ka dhigo waxaan doonayaa inaan ka biyo dhammaantood underlineka amba lineka yaro hoosta kaga wada yaala waxaad odhanaysaa text decoration none markaa oo ka ba'ay text decoration none haddaba hoosta home about surfaces contact hoosta isaga wada jiraan sida kuwana kale aan doonaya inay kala durkaan waxaan odhanayaa saasaa u sameeyo waxaa odhanaysaa barin 7 pics 15 pics markaa way kala durkeen haddaba waxaan doonayaa sida kuwan oo kale marka la dul tago inuu midabku isbedelo saa maxaan sidaan saa u sameeyo waxaan odhanayaa taas kale waxaad ku samayn kartaa waxaad odhan karaysaa .nav .hover kelmadda markaa hoverta waxaa loo isticmaalaa markaad doonaysid inaad markaa hover waxaad odhanaysaa kalarka casaan baan ka dhigayaa amba guduud C0339 2B markaan dul tago markaa qaybtii koowaad saasay noogu dhammaanaysaa wixii su-aalaad qabtaan xagga commentka igu soo weydiiya qaybta labaad waxaan samayn doonaa hero sectionkan qaybtan iyo qaybtan contactiga markaa navbartan iminkaan samaynay waxaad isticmaali kartaa websiteka doontaad samaysanaysid kalarka doontaad ka dhigan kartaa meesha doontaad isticmaali kartaa marka inta waxaa kaa caawinaysa inaad websiteka doontid samaysid waad mahadsantihiin